tollaayo tacabkayba war waxaana dul hayay ilaa waxaan xaraashay joodariyadii carruurta ku jibsanayay wixiiba waxaan ku shubay meel ilaa forakas dee dhiishkii baa dhaqaaqo midhkama hayo مالي تراني يا مقدشة وهكا مقنعي اسكو بالولا وراي وحينا اما نقيسا وحيقا كايت صدر وروحي انا البلغات خلاص فينيش اريي war annaga waxaana soo martay horay noo soo martay nin baa wuxuu yidhi ninkii dhici jiray dhib kuma ahee dhowaan beredka u hadheeliin jiifow jaqba annagana soo martay adeer waxaan waanu soo aragnay idina xoogaa laydinka yara jeebsiiba layara taataabtay ayaa loo waadhabriida jiifsan dad intaa loo ooyay oraxan maxay ahaaye hawaya nagaysa aamusa wareedhe war aniga baskaygii iyo bajaajii iyo wixii dhan intaan xaraashay baan meesha geeyey haddama waxay leediin wixiiba waa la dhacay waxba nooma reebin waraadhahay wadaadadiina aan wada ooyahayow adinkaa xoolihiinna markii hore meeshaa ku shubaysin ka fiirsan waayey annagana waa noo soo laabanaysin musaaradii horaa nugula soo laabanaysin kaalada nugu soo biira horaa loo sheegay dumarka qaarkood inay cadow yihiin haddadka u tacsiye masiibo shacab baa dhacday waddankii la xaalfiye wargaajada ka baxbaan guntiga u xirtay ma haddaan galay geerishkeed ma qaaba qoysayn ma shilinna alla walle ariya waxaan weydiiyey sow wageerey war shirkii la dhahaa Puntland buu ka furmayaa horta yaa war ka hayay war bal war naga siiyay arrinka war heedhahay shirka meesha ka furmaayay maxaa looga hadlaayay shirku waa ujeedada badan haddaan jawaabtiina idin siiyo shirka waxaa ka qayb galay isimadii Puntland shacabkii Puntland siyaasiyiintii Puntland ama heer federaal ilaa heer gobol iyo ururada bulshada waxaana lagaga arrinsanayay aayaha Puntland shirka haddoo ay ka tashi yahay isimada afarta isin oo ugu waaweyn saddex kamida iyo wasiirka qorshaynta oo ka soo jeeda Puntland kama qayb gelin sida aan maqlay mar hadday saas taane timir laf baa ku jirta yariyay waxa la yiri fiintu jirka haye kama ooydo ka soo socday ka ooyda gobasha dani baa dhigay dari adeer dari iyo dawladda mucaaradkeena waa loog yahay war waxana sheegay waxa ka tirada shirka dawladda lagu mucaaradaya war halow war arrintan uu arrin ka duwan baan qabaa dani Puntland ma Puntland dani ma sax shacabka Puntland iyaga dawladda federaalka dhisay u hooyo iyo u aabe iyo u abti adeer ah maal iyo naf iyo wax walba ku bixiyeen iskamana duminayaan waa dad aqli leh waxa iyagu ku soo dhinteen oo dhisteen habarteeday ka tahay inay dumiyaan marka adeer daniyow dadkaaga dhinac ka raac Allah maxay shalaq walaq wax ogtahay dani waa fanaan caan buxoon hees abwaan dilini distoonatay iyo abid muusan gelin eray jab mansoode heesihiisa dunidoo dhan baa laga dhageystay yaa yiri wax baas buu la labi waa qisiya yaabe waraysku maan waxaan idin weydiiyay adduunka xuduudiyadooda waa xirtay oo diyaaradihii waa la joojiyo meel waliba waa qam xitaa waddanka Kuwait waxay ku dhawaaqday masaajidada in albaabada qam la isugu siiyo salaad lagu tukan subhanallah waa arrin cajiib ah waxaad yeelaysaan war innaga jaadka waa noo furan yahay diyaaradihii wixii saasay u soo daabulahayaane jaadka haddii aanu nilaa hala joojiyo maxaan ku bedelan lahay yaa fikir inoo haya war anaga garanaya wax lagu bedelo ilaahay wuxuu ina siiyay ku bedelayna cambaha iyo muusiga babayga canabka noo beeran cambaruudka saytuunka iyo caanihi iyo liinta malay caarida iyo dahabka ceeryoona bahay wuxuu nagu cawlay bana cid kale hayn Soomaaliyeeysi haddaan cudur la gubin waa cawranteen caadaqaati haddii qabiil la iska celin waayo calankii haddeenan u dhiman ciida iyo diinta cid kale u haraysa oo dalka lagu maceeshaayee cisi iyo haddii aad sharaf rabtaan calanka taageera calanka xuduudka xidha oo riboorka xidha oo xidha waxaba oo qurunka daaya waryaadhaheen isku maan ma maqasheen in amnigii caga dhigtay muddo badan baa la soo wadeeyey oo wax calliyaalo wixii dhagax yaallay magaalada ee la dhigay la tawgaraynayo gebigoodiiba
oo adeera waxa ku weydiiyay rag ragaayo dhici jiray magaalada waa la kala xirxiray iyo oon iyo lug baa loo dhintay maxay sheegi doonaan wax kala sheegi mayaane waxay sheegi doonaan xar dhagaxa la qaado in la laayaal raba waraan su'aalan qaba taw garays maxaa la yiraahdaa taw garays waa jiidin dirindilayn gaari badabada looga xiri qalan insha Allah ilaahay yaa ku mahadle dhulkaynu abniyow dhaalo dhabaha dhagaxa alima dhulkaynu abniyow dhaalo ya dhabaha dhagaxa olima dhulkaynu abniyow dhaalo dhabaha dhagaxa olima war maxaa sixid u baahan waxaa sixid u baahan oo wasaaradda caafimaadka xageeda sixid uga baahan xagga fayadhowrka caafimaadka waxaad arkaysaa bulsho dhan oo maqaaxi fadhida ama hool ku jirta qof sigaar intuu la soo baxay ku dhex cabayo bof maandooriya ku dhex sudaya oo dadkii kala cararayaan dhakhaatiirtuna way ka dayrisay bahalkaas iyo waxyaalaha la midka arrintaas allaylehe sixid ay u baahanta taa waxaaba ka daran oo wasaaradda caafimaadku ka gaabisay ummadan oo qadaynaysa iyo ummadan oo sheekaysanaysa mid hindhisa ku dhex siinahay tuhna ku dhex siinahay taasay wasaaradda caafimaadku ka gaabisay allaylehe wax laga qabta deg dadka kale waxaad yeelaysaa maana dadka waday ka yimaada waxaana looma akhrinaysaa loo sixi waxaa loo sixin waa in idaacadaha laga baafiyaa waa in wasaaradda caafimaadku ay digniin amar waliba mandatory inay ka dhigto way arrintaas allaylehe raadiyo muqdisho hawl badan baa ku taala dadka gaarsii hawshaas gaarsii allaylehe waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan